xamar aadideedii xabsi baan ku galaayo xaalkeena waa ka waxaa sii xumaanaysa xaaladda alfanaan qamar suugaani oo muddadii yareed oo muqdisho ku sugnaa isu haystay talyaani Rooma jooga laakiin hadda waxa uu noqday libaax qoyo oo waxa uu buunshaha ku cunayaa barbarabada cagaha gali kadib markii ciidanka booliiska Soomaaliland ay xalay xabsiga dhigeen dad badan oo reer Soomaaliland ayaa xarigga qamar suugaani soo dhaweeyay halka fanaaniin qaarna ay ka caroodeen wixii ku dhacay talyaaniga Rooma ka yimid haddaba waa maxay sababta qamar suugaani loo xiray ma tagitaankiisa xamar ayaa xaaraan ahay mase Soomaaliland ayaa xabsi mooyay xal kale oo haynin fanaaniinta diidan goonaystaga jamhuuriyadda barakaysan maxay muqdisho kaga duwan tahay magaalooyinka Addis iyo Nairobi oo tagitaankooda xorriyad loo siiyo fanaaniinta Soomaaliland xitaa haddii ay huudaan calamada Kenya iyo Ethiopia halka midka buluuga aragtidiisa la baacsado muqdisho taageerayaasheeda ii disho ugu soo meesha yaa soo fanaan caalami taageerayaasheeda annaga dalbaday oo annaga mid ogolaashanaaysa أنا سني فنان مين معد بقى وقرا شو قبعنا شوك حاجات كتير مدون أنا ما حكي موضة كم مشاركة توبي qamar suugaani waxa uu ku dhashay Tuulayro lagu magacaabo Sanqoole wuxuu markii dambe u soo hawa gadista hoyga fanka Hargeysa halkaas uu ku soo barbaaray Maxamed Wardi waxa uu soo gurgurtay waxa uu saaxadda fanka si weyn uga soo dhex muuqday sanadkii 2018 xilliga ay u qaraxday heestii dawo way magacaaga bilan dulkan damcaynan ku qoro ekiyo sanadan ku dayay wadaban kaanisi daruur qaysan ka baqay intaas wixii ka dambeeyay qamar suugaani waxa uu noqday fanaan si weyn looga yaqaan geyga Soomaaliyeed wuxuuna fankiisu gaaray dalliya dibad bilka hore ayuu qamar suugaani muqdisho u soo kictimay isagoo sii maray Garowe wuxuuna muqdisho ku soo qaatay waqti aan sidaas u badnayn waliba waxa uu ku dhigtay bandhig fanaaniin heer caalami ah nasiib darro markii uu dib ugu soo laabtay deegaanada Soomaaliland waxa loo taxaabay xabsiga isagoo dusha looga tuuray dambi uusan lahayn iyo inuu huwada calanka Soomaaliya intii uu muqdisho ku sugnaa walow aysan kaamiradaha qarsoon qaban sidoo kale sirdoonka Soomaaliland ayaa shaki geliyay sababtoo markii hore qamar suugaani sida dhumaalaysiga uga baxay haddana ugu soo noqday maadaama uusan ka duulin kana soo degin garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland maamusho si kastaba ha ahaatee xarigga loo geystay qamar suugaani waxa cambaarayay oo si kulul uga hadlay qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliland walaal waxaan u aragnaa xarigga qamar suugaani xarig xaaraan ah fanaan yar siyaasad ku jirin wax dalkayga iyo qarankayga waxyeelaya ku jirin xamar tagay show soo qabsanayay soo noqday in la xidho waxaan u arkaa wax dalkana ku ah liidnimo dadka ku ah bahdil waayo Soomaalilandnimada cuqdad in la qaadsiyo maaha aniga xamar waxay noola mid tahay Nairobi South Africa Dubai dalka anaga ay tahay in yaro show ku soo qabsado yimi in la xiro khalad baan u aragnaa walaal anagu haddaba adigan warbixinta daawanaya sidee u aragtaa xarigga qamar suugaani waa bahdi qarsoon media isku duubanayd balanteena waa subscribe legal dhaca page-kan FB share taado ay noo muhiim comment warkeeda nabadii saaxiibiya